wax allaalihi wixii aad samaysay laakiin aan kaa dhigin qofkii aad rabtay aan kaa dhigin 2023 haddaa ku celisana sidoo kale orantaa mila fahanteen laakiin 2023 haddaa rabtay inay wax cusub kuu soo baxaan you have to change your habits waa inaad wax sida joogtada ah u samayso inaad wax ka beddeshaa markaas wax iska beddelayaan noloshaada markaas wax iska beddelayaan bismillahir rahmaanir rahiim horta muuqaal qurux badan meeshan yaala laakiin qofkii inta soo istaagay bisa dareemi kara waxaan aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada kala duwan ee barnaamijkan galabta ka soo qayb gashay si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa Dr. Cabdiqaadir iyo Macallin Koba oo runtii waqti gooni ah noo soo huray saaxiibada barnaamijkan quruxda badan soo agaasimaadaan ugu mahad celinayaa kambaniyada waaweyn ee sidoo kale barnaamijkan duubaya Bila iyo Astaana sidoo kale aadaan ugu mahad celinayaa inta kadib raali hada horta wax yar baan daahnay barnaamijku wuxuu ahaa xilli hore inaan bilaawno laakiin muhiimadu wax kale ma fariinta hadduu Ilaahay yiraahdo waad helaysaan waa mar kale iyo programkeeni Inspire Me oo sanadkan 2022 aan ku gabagabeynayna ciwaanka quruxda badan ee halka ku qoran waxaan rajaynayaa aniga hadda marka si la ii fiiriyo barnaamijkan waxaan u arkaa inuu yahay barnaamijyadii iigu weynaa ee sanadkan aan jeediyo adiga laftirkaagana waxaan ku rajaynayaa programkan inuu yahay kii kuugu saameynta badnaa ee sanadkan aan ka qayb gashaa duwaaleyn si kooban ciwaanka galabta horta aan ka hadlaynay wuxuu ku saabsan yahay sidee loo bedelaa caadooyinka ama dhaqamada ama waxyaabaha lala qabsaday dhowr qaybood buu ciwaankaygu ka kooban yahay waana presentation kooban oo hadduu Ilaahay yiraahdo si kooban ay la fahmi doontaan duwaaleyn waxaan marka hore ku bilaabayaa presentationkayga inaan macluumaad kooban horta aan ka bixiyo ama xog yar oo kooban horta inaan ka bixiyo habitsku waxay yihiin si kooban habits waxa la yiraahdaa dhaqamada ama ficilada qofka bini aadamka uu daa'imo ama uu joogteeyo aakhirkiina keena hadhowti markuu qabanayo qofka inaanay uga baahan wax dadaal iyo fikir inaanay uga baahan ayaa si kooban horta waxa la yiraahdaa habits la yiraahdaa inta marka laga yimaado waxaa la yiraahdaa 40% ilaa 50 waxyaabaha aynu maalin kasta sameeyno waa caadaad marka waxaa la oran karaa 50% nolosheena inta badan waa waxyaabaha ku soo celcelino si joogto ah oo routine aan u sameeyno waxaan rabaa marka hadalkii doctorku uu sheegay Ustaad Cabdiqaadir qayb kamida inaan tix raaco oo ah waa maxay saameynta nolosheena ay ku leeyihiin isteedyada yaryar ee aan joogtayno si kooban horta waxaa la yidhaahdaa libinta la raadinayoba meel sidaa u fog ma jirtee waxay ku jirtaa our daily actions waxyaabaha aynu sida joogtada u sameeyno ama waxyaabaha aynu maalinlaha u sameeyno halkaas horta wax laga raadinayaa hadday positive yihiinna stebiskaas yaryarka oo aruuray ayaa saameyn badan noloshaada ku yeelanaya hadday negative yihiinna ayagoo aruuray sidoo kale noloshaada waxay ku yeelanayaan saameyn meel fog markii aan wax laga raadin marka anagu moogtay caadiyan waxaan aaminsanahay qofku si uu wax u gaaro waa inuu shaqo weyn qabtaa this is not right waxa saxda waxa waaye waa isteegyo yaryar oo aruuray ayaa natiijo weyn dhala tusaale kooban aan siinahay bahalka maroodiga loo yaqaanay weynka waa aragtaan soo ma idinka idin weydiinaa haddaa istaagtid dadka ma qaniinaa ma qaniin xajmigiisii muuqaalkiisana waad aragtaan hadduu kugu fariisto waa adigaa qaylinaya laakiin ka warrama kaneecada ka warrama ma weynta horta maya mararka qaarkood waxaa laga yaaba ishaadu inaysan qaban laakiin saameynta leedaha ka warrama
soma ma marka qaar kood ay ku qaniintaa ma marka qaar cudurro ka dhalanayaan marka ogaadaya waxyaabaha inta badan nolosheenna dhisa dhinacay rabta ha aadee waa isteebyada yaryar ama waxyaabaha aynu sida joogtada u samayno waa dadku waxay yidhahdaan marka qofka mustaqbalkiisa lama udurisi karo waa been waa qofka mustaqbalkiisa waa la udurisi karaa waa la qiyaasi karaa tusaale ahaan 10 sano kadib noloshaadu siday noqon karto waxma laga udurisi karaa haa waa laga udurisi karaa yes ma wax oo weyn ma maxaa wax laga fiiriyaa marka laba shay wax laga fiiriyaa oo ah kow qofku waxa uu ku fakaraayo iyo waxyaabaha uu qabtay intaasaa la fiirinaya maxay mindsetkiisa iyo caadaadkaa la fiirinaya marka tusaale ahaan wax aadan ku fikirin horta ma noqon kartaa horta waa su-aale may suuragal ma hor sidoo kalena qofka mustaqbalkiisa meelaha laga fiiriyo 10 sano kadib meesha ku dhici kara waxaa la fiiriyaa maanta wuxuu qabanayaa la fiiriyaa so automatically meesha maanta aad joogto iyo waxaad haysato iyo qofka maanta aad tahay oo aad ku magacaaban tahaba waa the result of your habits natiijooyin ka dhashay waxyaabo aad hore u samayso haddaad ku qanacsan tahay haddaadan ku qanacsanayn halkaa meelahaysaan waay haddaan marka u baahana haddaan u baahana inay isbedelaan natiijooyinka noloshayda waxa ugu weyn ee ay tahay inaan wax ka bedelno waa waxyaabaha aan sida joogtada u samayno that's why aan u baahannahay inaynu dhisano positive habits war halkaa meelahaysaan marka 2022 ama sanadka dhammaanayo wax allaalihi wixii aad samaysay laakiin aan kaa dhigin qofkii aad rabtay aan kaa dhigin 2023 haddaa ku celisana sidoo kale orintaa meela fahanteen laakiin 2023 haddaa rabtay inay wax cusub kuu soo baxaan you have to change your habits waa inaad waxa sida joogtada u samayso inaad wax ka bedeshaa markaas wax iska bedelayaan noloshaada markaas wax iska bedelayaan laakiin fiiri wixii shalay ka horreeyay ku celi the same results natiijadu isma bedelayso that's all wax kale oo meelaha dadka la xagxagto meelaha dadka la eedeeyo meelaha dadka la cambaareeyo ma yaalaan of course kaliya waxaa eegaysaa what you do daily wax sida maalinlaha u samaysa bas mustaqbalkaagana meeshaasaa looga qiyaas qaataa maxaa la yidhahdaa marka successful people have successful habits unsuccessful people have unsuccessful habits dadka libinta gaaro waxaa la yidhahdaa waxay leeyihiin caadaad meeshaa soo gaarsiiyey dadka nolosha ka harana sidoo ama ka dhacana caadaadkooda ama dhaqamadooda dadka reebaa la yidhahda marka baashu waxay u baahan tahay waxa aad sida maalinlaha waxa aad sida joogtada u qabato inaad wax ka bedeshay u baahan tahay waayo si kooban Aristotle oo ahaa mid ka mid ah filosofaradii ugu waaweynaa ee dunida soo maray wuxuu leeyahay bini aadamkaasoo ka sheekaynaya ama sawiraya wuxuu leeyahay waxaynu nahay waxa aan sida joogtada u samayno ama waxaynu nahay waxa aan ku celcelinno then to be an excellent qofku inuu meel sare martabad sare inuu gaaro waa wax u baahan buu leeyahay habit ama habits right so habits are very powerful tool when it comes to success yes adiga dhan marka rabo in lagu ogaado
caadooyinkaagaa la fiirinaya. If they are positive, natiijooyin fiican baad filanaysaa. If they are negative, warku waa dheh. Correct. Coachkaas haddii taa shay kuma celinaayo. meel kale adoon wax ka raadin, jug weyn adoon qaban, ficil weyn adoon samayn, libinta dhanba waxaa laga dhex raadinayaa qofku wuxuu rabaa isagaa oge. waxyaabaha sida joogtada ama sida maalinlaha loo sameeyo halkaasaa wax laga baadigoobayaa, halkaasaa wax laga raadinayaa. Why? waxaa jirta marka adaatay baa idin sheegay qofka hadduu dareemaayo dib u dhac badan hadduu dareemaayo waa caadooyinkiisa wada. hadduu sidoo kale horumar iyo kobac hadduu qofku sidoo kale dareemaayana inta badan waa caadooyinkiisa wada. qaybta u dambaysa muxaadarada ayaan ku soo koobayaa isteebyo yar oo kooban oo qofka hadduu raaco ka caawinaya caadooyin xunxun hadduu sameeyo ka gudbi kara, mid fiicanna uu ku dhisi kara qof waa soo wadaa. laakiin su-aal baa ka horeysa, waxaadan aqoon say u samaysmaan maba furfuri kartid, waxaadan aqoon say u samaysmaan maba dhisi kartid. su-aal baa meesha imaanayso psychologically horta caadooyinka say u samaysmaan horta. yes, qol mugdi haddii inta lagu dhex isaajiye lagu yidhaahdo qiblada qaabil ma wareegi may automatic waxaa arkaysaa ma aadan ka fekerin wax maxay iiga baahan tahay xitaa maadan dhihin, waa ka fikirayaa sug maadan dhihin. markaad raashinka cunaysa ma ka fikirtaa markaad soo qaado meeshaad marinaysa ma ka fikirtaa? may kama fikirta, automatic waxaa aragtaa adoo soo qaaday afkana la galaa ay saartaa. that's a habit. wax marka muddo aa ku celcelinaysa. marka sidee waa iga su-aale ficilada aan samayno sidee caado ku noqdaan ama habit sidee ku noqdaan? su-aasha waa taasa. intaana su-aasha ka jawaabin cyclekan kooban ayay horta caadooyinku markay dhismayaan ama marka waxa waaye maskaxdeenu ficil markay caado u rogayso intaana horta la isticmaala. meelaha qaarkood waa 4, meelaha qaarkoodna waa 3. marka waxaa soo qaatay processka 3daa soo qaatay. waxa ugu horeeya wax loo yaqaan cue, routine iyo reward. cue waxaa la yidhaahdaa qaybtan haddaa ila fahamtaan dhisidda caado cusub hadhowti waxay noqoni very simple. yes, cue waxaa la yidhaahdaa waa wax allaala iyo wixii ku soo xasuusiya waxaan inaad samayso. waa wax allaala iyo wixii kugu dareen geliya dhaqankaa isagaa inaad samayso, macaadada iyada inaad ku dhaqaaqo. that's a cue. meelaha qaarna waxaa la yidhahdaa reminder aa la yidhahdaa wixii wax ku soo xasuusinaayo halkaa meela haysaan kaa marka waxaa la yidhahdaa cue ama reminder aa la yidhahdaa. waa waxa nagu wargelinaayo inaan wax samayno, waa waxa nagu kicinaayo inaan wax samayno ama waxa nagu dhiirigelinayo inaan ficil samayno. cue ayaa la yidhahdaa kaas psychological. halkaa misla haynaa routine marka waxa waaye waa waxa qofku uu sameeyo. waxaa la yidhahdaa sidoo kale behaviorna waa la yidhahdaa waa wixii qofku uu sameynaayo. tusaale kooban baan idin siinaya. muxaadarada intaanan bilaabin salaad casar aan soo tukan. salaad casar maxaa na xasuusin kara marka? dhowr shay aan na xasuusin kara. waxaa na xasuusin kara horta maxay? waqtigaa horta na xasuusin kara. halkaa ma ujeedaa? timekeeda in la gaaraa na xasuusin kara. tusaale kale dadka leh balwada tusaale sigaarku kala soo qaadayna waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood qofku inay dhib ku noqoto balwad ama caado xun qofku inuu iska gooyo oo uu la qabsaday, laakiin wuu la xarbinayaa, waa joojinayaa, xoogaa buu ka maqnaanaa, waana ku laabanaya. marka qofkii isaga ahaa sigaarkii buu rabaa inuu iska gooyo,
mar allaala iyo markuu arko sigaar la cabaayo ama urkiisu uu soo uro markaas soo xasuusanaya halkaa meelahaasaan laakiin inta meesha uusan sigaar ka dhaweyn qofkaas behaviorka inuu sameeyo ama caadada inuu sameeyo waxaa ka horeysa caadada wax ku kiciya inay jiraan. That's we call cue. Warbasanayna halkaa inta badan marka qofku caadadu ha xumaato ama ha wanaagsanaato saddex shay baa qofka wax ku kicin kara. Midda koowaad waa locationka, goobtii waxaan uu ku samayn jiray ama goob waxaan qofku uu ku sameeyo haddii uu arko wixii waa ku kacaya. waa midda labaad timeka waqtiga qofku waxaan uu samayn jiray oo kale haddii la gaaro iyana waa ku kacaysaa. iyo waa midda saddexaad ficilada dadku ay samaynayaan. ficilada dadku ay samaynayaan waxa laga wadaa qof baa wuxuu rabaa inuu degsado caado ama dhaqan joogto ah oo ah cabista biyaha nadiifka ah laakiin waa ku dhibay ma joogtayn karo. mar waa cabayaa maalin waa ka tegayaa waa galab waa qofkaas keli markuu yahay waxa laga yaabaa inuusan wax badan oo biyaha cabinaa laga yaabaa. laakiin markuu yimaado meelaha noocaan oo kale dadku isugu yimaadaan dadkuna biyo ay wada cabaayaan waxa laga yaabaa inuu cabaa laga yaabo. tusaale kale adoo waddo iska maraya waxaa kaa hor yimid qof dhallinyara oo counterka yarkaa ee tasbiixda lagu akhristo wata dhaag 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 tawaad maxay sarkay adoo afkii yari sarkay mid hore ka tasbiixsada sarkay mid haddaadan arki lahayn marka qof tasbiixsanaya maadan tasbiixsan lahayn. caadadaas marka inaad samayso maxaa kuu kiciyey waxaa dad ka aragtaa kuu kiciyey. inta badan marka waxa nagu dhiirigeliya caado inaan samayno ama dhaqan inaan samayno saddexdaa shay baa ugu waaweyn. waa locationka, timeka iyo dad kale waxay samaynayaan. laba kalaa soo raacda laakiin awood badan mana labadaasaa ugu waaweyn. yes saddexdaasaa ugu waaweyn. routiinka misle baa noota routiinka misle baa mina so midka koowaad waxaan nahay kiyu routiinkana waa wixii inaan samayno. reward marka waxaa la yidhahdaa wax allaale iyo wixii aan ka helno markaan caado samayno. yes tusaale waxaan ka soo qaadaynaa ninkii sigaarka cabay baan ka soo qaadaynaa. bal waddu markay qabato asagii dhanba xoogaa wuxuu dareemayaa inay wax ka maqan yihiin inay wax si ka yihiin. markay lacag jeedkiisa soo gasho markuu saaxiibkiisoo cabayo uu arko markii meeshii uu ku cabi jiray uu tago markuu u soo uro mararkaasay baashu kace. yes waa uu sameeyey riwaadku marka wuxuu noqonayaa waa balaayo kale. riwaadku wuxuu noqonayaa inuu xoogaa is yidhaahdo waa nafista. nafis maaha waa balaayo. warka ina maanteen halkaa riwaad. yes tusaale kale meel baan fadhinaa waa la adimi adinkaa aan maqlayno waa waxa noo sheegaayo inaan wax samayno. waa kiyuwa masaajidkii baan galnay waa soo tukanay. masaajidka aan galayno ficilka aan samaynayno waa routiinka waa steebka labaad waa. steebka saddexaad muxuu noqonayaa salaada markaan ka soo baxnay inaan dareeno farxad iyo deganaan iyo waajib inaan gudan. right dhaqan haddaad maqashid caado haddaad maqashid waxay qaadataa saddexdaas steeb oo israaca. oo meelo maanteerita waayo su-aal baa meesha imaanaysa marka imisay qaadan kartaa ama imisay la-eg tahay waqti ahaan qofku inuu dhisto ama sameeyo caado positive ama negative xitaa ha noqoto. yes waqti ahaan imisay kugu qaadan kartaa. dadka qaar waxay leeyihin 20 iyo xoogaa cisho, kuwa qaar 30, kuwa qaar 2 weeks, kuwa qaar 40 days. wax xisaabaad la sheegi karo laakiin baashu halkaanay ka macda. caado inaad dhisto ama waxaad qabanaysa inaad caado ka dhigato min ogaado waxaa la yidhahdaa dadka professionalska oo nolosha saamaynta ku leh waxa ay rabaan inay ku soo muuqdaan waxaa la yidhahdaa waxay ka dhigtaan habit ay ka dhigtaan caadi ka dhigtaan. caado markay ka dhigtaan waxaa u fududaanaya marka waxaan qofka inuu qabto maba uga baahna dadaal iyo juhdi badan uguma baahnaba. had tusaale marmarka qaarkood
استعمالك السوشيال ميديا ما هو كاجب هي إن النفط كله يطول ما يكاجب ما رسل عادي أمر كنت رسول شيء لكن أنا بحق رسول أما سجل تاني أنا بحق رسول يس ما أدري من كرنا وقول بقى النفط إنه قدر قيمة كوراه وقول نموه سبب حاجة الدواء ما سوشيال ميديا وحكون نقضي حبي يس وعطا مركات معلم لك كم قاعد تودرين كسامو سيد نيك سيجار كلا يدقون وحباد وينيسا أرجع صح سوسريسا وسمينيسا حوجا مركات وحي جري مركات وقتنا رواية كاي رواية شو صلى الله عليه وسلم كأجي يا if you gonna be very professional حيابها عادي اللي جربوا حكم إذا واحد دوني سنة سامين تكويش كويلته وأنا أتكلم تا habit وأنا أتكلم تا سؤال شنو عليه يا مري إيه سمع علم أي قاعدة كرتا قف واحد هريا الله واحد هريا الله لا أولي إن تحبط كذا مع المال لما شيء جاي ساعدنا لما شيء جاي واحد يكون حرمت عاي قفك أنت واحد وكل اللي يكون حرمت تصالك هذا إيه عبد الرحمن وحور رواينه عادة بستو أنا بنو حار رواينا عادة بستو مركا أسمع مانكي هالمرة سمية أنا بنو حار سمية لا مرة سمية marka ma isku mar ma la qabsan karna ma waa adeegta automatic ana ka hormaray warta ma leeyahay it depends how many times ayaa waxa lagu celceliyo it depends how many times ayaa waxa la sameeyay marka 21 cisho laba toddobaad soddon afartan aragtidaan dama ka awood badan ay ku xiran tahay waxaan inta lagu celceliyo ku xiran xaqiiqaduna waxay tahay waxa mar haday habit ku noqdaan uma baahanaysid waxaan cid inay ku soo xasuusiso uma baahanaysid waxaan inay cid kula samayso uma baahanaysid waxaan in xitaa lagugu abaal mariyo adaa ku raaxaysanaay till the end yes so marar badan waxaa dhacda hal qayb unbaa ii hartay marar badan waxaa dhacda inaynu isku dayno nolosheenna inaan ka saarno caadooyin nala haray right isla markaana aan ku soo dabaalno ama ku dabaqno caadooyin aan isleenahay waxbay idin taraayaan laakiin inta badan oo ku guuldareysana soo ma oo ku guuldareysana soo ma yes waxaa jirta xikmad yar oo Chinese oo tiraahda caadooyinku marka hore waa sida bahalka yarka oo caarcaaradu ay sameeyso waa taqaana soo ma oo wadka camal ah marka damar waxay noqdaan baa la yiraahdaa sida kaybalada fiilooyinka كيبل فيلو ما أدري يا مسوا جلسية يا وأدري يا سما كيبل فيلو وأدري يا يس لكن بعد كده عارض أي سما يسوي وفير soft حلقة ولا وحن قف مركب بلو كله واسلا لكن مركب مدجو تيو أو وحن مدجو قطو وحل هذا وحي مقدار sida kaybalada kale noqdaan baa leeyahay that's why ay u adag tahay dhaqamo aanan doonayn nolosheena inaan ka bedelo warta meel fahmisan so we have model ka kooban saddex shay oo saddexda hadda ila fahamtaan ay muhiim tahay hadhoyti isbedelku inuu saameyn waxa waa keeni karo saddex shay ka kooban waxa waaye ونتيجوينك aan raadinayno iyo qofka natiijada raadinaya iyo dariiqada lagu raadinayo waa saddexdaa yes wax adiga kugu saabsan oo isla adiga ah iyo dariiqa wax ku raadinaysid iyo waxa la raadinayo anagu inta badan xaqiiqo waa dhammaanteen waxa waaye natiijooyin fiican baa rabnaa soo ma cid inkiri kartaa ma laha yes all we need a great results qofka saynay wax fiican inay u soo baxaan natiijooyin fiican inuu helo anaga waxaan doonaynaa yes laakiin waliga ma isweydiis adigu ma tahay qofkii saxnaa ee natiijadan heli lahaa ma tahay that's a question adigu ma tahay qofkii saxnaa ma tahay marka identity waxa waaye waa waxa adigu aad aaminsan tahay waxa gudaha ku jira waxyaabaha ku dhaqanto waxa socdana waxay soo galayaan identity soo galay
system iyo habitiskuna waxa waaye waa qaabka wax loo qabto wa dariiqa loo marayo waxa la raadinayo wa outcome-kuna waxa soo baxayo wa isna ma weliga results-ka ka fikirin maxaa ka fikirtaa laakiin identity ayaa ka fikirin are you the right person marka qofkii saxda ah markaad samayso natiijooyinka ayaga iska imaanaya natiijooyinka ayaga iska dhalanaya caadooyin saxan leh waxa waa yani wax joogteeya waxa saxda markaad samaysid in Allah la yudiicu ajra al-muhsinin shaqa qawati ilaahay natiijo la'aan kuma dhigaayo kuma wajinaayo halka meelaha saad marka nima hadda kor waxaan leeyahay wuxuu rabay halka wuxuu rabay basically inuu caafimaadkiisa saxo xogaa miisaan culus baa saarnaa marka wuxuu rabay inuu fit iska dhigo marka guri uu degan yahay buu meel mar kasta ishiisu ay ku dhacayso buu wuxuu ku qortay su-aal iyo jawaabteed su-aashu waxay ahayd wuxuu sameeyaa qofka caafimaadka qaba ilaahay baa caafimaadka bixiye yani dadka caafimaadka qaba oo fitka maxay sameeyaan waa su-aal abcd waxyaabaha ay joogteeyaan cunno isku dheelitirna cunaan nasiino fiican ay qaataan biyo badan ay cabaan exercise bay sameeyaan maskaxdoodii ka warayaan wixii buu qorta marka dheg idinka ay weydiinaaye ninkaas ma diyaarsaday kiyo fiican mise ma diyaarsan waa diyaarsaday sooma wuxuu haystaa wax mar kasta oo gurigaa uu soo galo caadadaas soo xasuusin karo haystaa marka fiiri bahashu meesha ay iska qaban la'dahay oo waxna aan ku dhisi la'nahay waxna aan ku bedeli la'nahay systemka ma ahan resultskana ma ahane waa wax annaga nagu saabsan laba nin baa hadda ka hor waxay rabeen inay iska gooyaan dhaqanka ama caadada sigaar cabista dheg marka muddo markay joogeen aan saas u fogeyn baa maalinkii dambe nin baa u keenay 2 xabo sigaara markaasuu kii koowaad wuxuu yidhi anigu iminkaan iska joojinaya sigaarka waa kii koowaad baa dhaha marka kii labaadna wuxuu yidhi I'm not a smoker anigu sigaarka ma cabo eeg meeshaa marka identity-gaan rabaa inaan idin fahamsiiye marka kii koowaad wuxuu yidhi iminkaan isku dayaya oo ku dadaalaya inaan bahalkan iska joojiyo waana loo soo taagaya kii labaadna wuxuu yidhi anigu sigaarka ma cabo kan yidhi sigaarka ma cabo automatic dhaqankaas inuu ka go-ayo waa caddaa soo ma ninka dambe laakiin yidhi waxa waaye waa iminkaan ku dadaalaya inaan iska joojiyo dee bahashu keligii hadday ahaan lahayd waaba gadan laha waa qaadan laha soo ma marka meesha ay wax iska qaban lahayiin waa wax identitygeena ku saabsan waay waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo marka ustaad kale oo ustaad kobac baa iga dambeeye 6 qodob oo kooban oo aad u arkay qofka hadduu raaco ama fologareeyo dhaqan xunna hadduu iska bedelaayay uu biyaha raacin karo mid cusub ama caado cusub hadduu dhisanaayana caawin kara right waxaan ku bilaabaya marka waa from bad to great from bad to good of course waxaad ka soo tegaysaa dhaqan xoogaa aan liidan waxaan usoo guuraysaa halkaa qodobka koowaad soomaalidu waxay ku mahmaadaa sabti iyo sanad cusuba xilli horaa la toosaa maxaa laga wadaa inta badan dadku markay caadooyin iyo dhaqamo iyo isbedel ay rabaan inay ku dhaqaaqaan waxay ku aadiyaan waqtiyo mucayana bil cusub sanad cusub saas oo ma xilliyo cusub bay ku aadiyaan marka sanad baa inoo gabagabaa midna waa noo bilanayaa sidaan sheegay 2022 caadooyinkaagii haddaadan wax ka bedelin 2023 there will no any difference ومن يفهم هذا أسوون السيدو كلو نقانا واحد يجيل دوران اسبدل yes واحد اسبدل دوران هذا يراتي ورت مجران
marka waxaan qodobka koowaad ka dhigay ama qodobka koowaad waxaan ku soo koobayaa si caadooyin cusub aad u dhisato ama caadooyin positive aad ula timaado kuwa liita haddaad leedahana aad uga takhallusto wixii maanta ka dambeeya go-aan inaad gaarto war ma leefaa macalka wixii tagay waa tageen waxba lagama bedeli karo shayga quri ah wax ka qaban kartina oo waxa kaa horeeyo waxaa la rabaa marka wixii tagay inaad tidhaahdo enough is enough intaa ha igu filnaato wixii iminka ka dambeeya waxaan dhisanayaa ama la imaanayaa caadooyin qofka aan rabo iga dhigaayo caadooyin ama dhaqamo qofka aan rabo igu soo saaraayo wixii tagana waa tagay enough laakiin intaad labalabaynayso intaad laba ku jirtid meel lama socotid hawl baa maxaa la yidhahdaa hawl looga tagaa yes inta hadda aad jirtid ama inta hadda aad joogtid waxaad samaynaysay haddaysan kaa dhigin qofka aad rabtay haddaysan kaa dhigin waxaad u baahan tahay wax cusub oo qof kale kaa dhigi karaa u baahan tahay and that's a good habits warintaa meela fahanteen marka from now on waxaa lagaa doonayaa wax allaale iyo wixii dib kuu dhigay inaad go-aan ka gaarto oo tirahdid this is the last day this is the last time oo waxaan aan sameeyo enough adiga dhammayna waxaa laga rabaa xuub siibataa la rabaa hadduu ilaahay qodobkaan maslahaynaa inta laakiin labaclaba shaki tuur uu kugu jiro meel uma socdo naftaada beena u sheegi qofka saxda noqon kara waa qofka go-aan saxan gaari kara intaad laakiin maalin samaynaysid maalin ku laabanaysid meel uma socdo war qodobkaan maslahaynaa yes qodobka labaad waxyaabaha kaa caawin kara inaad caadooyinka aad bilowdid joogtayso til ay kuu noqonayaan habbi waxa waaye u bilaaw ama ka dhigo wax fudud yes noloshaadoo dhan fiiri haddii caadooyin aan fiicnayn oo fara badan hal maalin kuma bedeli karin 2 days kuma bedeli karin maxay u baahan yihin step by step one by one waxaasay u baahan yihin marka fiiriya sanadkii 2022 ama sanadkan 2022 bishiisii January qorshahaagu hadduu ahaa inaad barato tafsiirka qur-aanka maalin kasta haddaad bog qur-aana tafsiirkiisa dhegaysan lahayd maanta xaggee soo gaari lahayd waa su-aal yes xaggee soo gaari lahayd maanta waxay u badan tahay qur-aanka kariimka inta badan tafsiirkiisa inaad garan lahayd ay u badan tahay bog oo tafsiira qofka inuu dhegaysana waxaan u malaynayaa waa sheekh cabdiraxmaan waa 30 daqiiqo meelaa soo ma 30 days 30 minutes wax weynna kaama qaado yes sidoo kale sanadkan gabagabada bilowgiisii haddii maalin kasta waa ada fiiriya aad akrin lahayd 2 bayjo buuga haddaad akrin lahayd maantay xaflad baad dhigan lahayd xaqiiqo oo inta buug ee sanadkan aan akhriyey intaasaa oran lahayd maaha buugga hebel maa inta buug ee sanadkan aan akhriya maanta xaflad ugu lahayd laakiin naawo marka qaacidadu waxaa la yidhahdaa waa small steps plus consistency waqti loo helo enough tallaabooyin yaryar oo la joogteeya wax laga fishaa bas war intaa misle maamina yes nabiga calayhi salaatu wasalaam maruu asxaabtiisa la hadlaayo wuxuu yidhi adduunyadiina idinkaa iiga cilmi badan marka waa tii oo kale waxa aan sheegaayo qof kasta meesha dantiisa ku jirto ha ku ablaa gari hadduu ilaaha yidhahdo qodobkaana waa ka bax qodobka saddexaad waxyaabaha kaa caawin kara caado fiican oo aad bilowdo ama dhaqan fiican oo aad bilowdo inaad caado ka dhigto waxa ka mida waxa isaga inaad qorato oo u samaysato kiyuu fiican waxaani markay kuu qoran yihiin
iyo markaanay kuu qornayn waa kala labo. Yes, inaad qorato meel mar walba aad ka arkaysana inaad dhigato oo waxaad u fiican waa intaa meel maamisaan. Okay, write it down. Anaga inta badan dadkeenu qoraalkaas waxaa laga yaabaa xogaa inay ka wada caajisayaan baa laga yaabaa. waana muhiim qofku markuu wax bedelaayo markuu wax dhisaayo intaba inay wax u qoran yihiin waa muhiim. istaarka afraadna waxa waaye waxaan ku dadaal maalinle inaad u samayso. annagu waxaan u badanahay inta badan qofku waxbuu bilaabayaa isbuuca u horeeya carcar iyo dareen iyo wuxuu wax ku qabanayaa si aad u daran. isbuuca kalena xamaasadii waa soo jabaysaa. wixii markaa ka dambeeyana dadkiisu dhinac ka raacaya. waa aragnaa soo ma marka waxa quruxda badan oo ku anfacayo waxa waaye wixii aad bilaawdo inaad joogtayso. Yes, midda hadda aan sheegayay wixii 2022 bilowgeedii aad ku haminaysay ama aad ku fakaraysay ilaa maanta oo sanadkii hal maalin oo kaliya ay ka dhiman tahay haddaad maalin kasta wax ka qaban lahayd haddaad maalin kasta wax ku dari lahayd xaqiiqo maanta meel fiican baad ka joogi lahayd. waxaa ma dhicin wixii waxa waa yani hadda ku hor yaallo. marka make it daily. waxaan inaad maalinla u qabato oo si joogtaan aad u samayso ku dadaal. instructionana waxa waaye tan waxay idinka caawinaysaa qofka markuu rabo inuu ka takhaluso caadooyinka xunxun wa avoid triggers. wax allaale iyo wixii dhaqan xun ku soo xasuusiya wax allaale iyo wixii saameyn ku yeelan kara ama kugu dhiirigelin kara caada mustaqbalkaaga iyo naftaada iyo aakhiradaada iyo adduunkaaga toona aan u fiicnayn inaad samayso wixii kugu kicin kara ka fogow. Soomaalidu waxay tiraahdaa tuugnimo taataabashaa lagu bartaa ay tiraahdaa. يعني kasoo qaadada qofka dhalinyarada aan balwada lahayn markuu ku faraq xirto team dhalinyaraha waxooga balwada marka hore taataabasho wixii ku baranaa kadib waxa waa balwadiisu waxa waaye dhinaciisa galay. marka dadka ay sheegay qofku dhaqan ama caado inuu sameeyo saddex shay baa saameyn ku leh: goobta, waqtiga iyo dadku waxa waa sidii waxa uu sameeyay. saddexda haddaa ka fogaatid waa haddii waxaan negative ay yihiin. horta masale maamina. Yes, qodobka lixaad ugu dambeeyana aan ku soo gabagabeynaa waxa waaye dhaqankaa isaga ama caadada iyadaa siday caado kuugu noqoto degso waxaan wax kusoo xasuusinayo. tusaale qof baa wuxuu rabaa si joogtaa inuu jimicsi u aado. annagu waxaa waa bilawnaa waa ka tagnaa maya. marka ka waran marka caaga uu biyaha ku cabo, boorsada uu alaabta ku qaato, kabaha uu ku jimicsado, dharka uu sida goonida ugu jimicsado, ayagoo complete markay halka u yaalaan oo waliba meel uu arkay markay yaalaan iyo markii caagii maqan yahay boorsadii alaabta lagu goran lahaa aysan nadiif ahayn. qofkas ma kula tahay arrintaa joogtayn kara? waa maya. qof baa tusaale wuxuu rabaa akhriska inuu caado ka dhigto. gurigiisa buwaag ma wataalo marka waxaan wax soo xasuusinaya maba jiraan. Yes, isla fahmin halka. marka caadooyinka positive-ka markaad samaynaysid always abuuro waxaan wax kusoo xasuusinaya abuuro hadduu ilaahay yidhaahdo. halkaasaan kusoo gabagabeynayaa qaybtii aan ku lahaa presentationkan. I hope wax badan inaad ka fahamteen. always wax ugu muhiimsanna oo waxa kaa horeeyo wixii tegey wixii la soo dhaafay waa ahaadeen kuwa keliya hal shay baa ka samayn kartaa. waa maxay? inaad wax ka barato, waa aragnimo ka hesho. taas waa wax weyn dhaado. hawshu maxay? waxa kaa horeeyo. muhiimaddu maxay? waxa kaa horeeyo. baraaraha iyo horumarka iyo waxa ku yaala in front of you waxa kaa horeeyo. inta bisla fahmina.
ustaadka intaan siin mar microphone kulli iguma soo laaban inaan hal mar waxa iga dhamaysto. My brothers and sisters, sanad cusub baa gabagaba. Sanad cusub baa fooda inagu hay. Inteen halkaa fadhisa iyo in kaloo naga maqano kulli waxa waana daawan doontaa hadduu Ilaahay yidhaahdana waxbaa ka dhex guuxaya sax waxay rabaan ha noqdaan. qof kastana update grain iyo isbedel oo u baahay xaqiiq. sheekada yar baan idin sheegaya microphone-kana waa dhigaya. nin odaya oo Ustaad Cabdiraxmaan oo kala oo dadka talooyinka laga qaataa oo qabiira baa hadda ka hor soo gurigiisa joogo goobtii shaqada ku jira baa wiil yar oo mustaqbal raadis iyo tala raadisa albaabka u soo karkaraa. wiilku marka wuxuu rabaa in lala taliyo rabaa. yes marka odagii wiilku waa kulmeen wuxuu yidhi adeer waxaa isiisaa talo mustaqbalkayga dambe iyo aayahayga dambe ii anfacda oo aan ii taaba gashay sii. marka wiilka odagu ma raba inuu wareeriyo yiraahdo waxaa samee ma raba inuu yiraahdo laakiin wuxuu rabaa warkiina u soo koobo. wuxuu yidhi magaca Axmed aan ka soo qaadina marka magacii kaasuu yidhi Axmed baa la yiraahdaa. wuxuu yidhi Axmed su'aal baan ku weydiinayaa naftaada ugu su'aasha ugu jawaab warkuna ma xiran buu yidhi. wuxuu yidhi adigoo Axmed ah from today ama from now on 10 sano kadib xaggee joogtaa? yes 10 sano kadib maxaa lagaaga tashanaya horta? yes waa suuragal dadka qaarna isleeyihiin albaabka markaan ka baxno naftu inay naga baxdo suuragal waa sax. laakiin ka war dad lugaha iska saarto tiraadid anigu maxaan qabanaa haddaan dhiman karaaye 10kii sano Ilaahay cimri iyo caafimaad labadaba isugu kaa darka waran weli lagu isku kaa saarayn maxaa kuu suuragalay waa waxba 10kii sano soo yareeya marka waxaan ku ballamaynaa marka dhagaysta 2030 waa su'aale personally xaggee doonaysaa inaan kusoo dhaco garaad ahaan aqoon ahaan qof ahaan dhaqaale ahaan intaba 2030 xaggee doonaysa sidee doonaysaa noloshaadu inay noqoto? that simple. isweydii su'aashaa marka ayla fahmeenka waana wax every single day naftaada aad ku dhiirigelin karta. ilaahay hadduu cimri iyo caafimaad ku siiyo 10 sano kadib ama 7 sano kadib xaggee doonaysaa inaad ku soo baxdo? qof caynkeedaa doonaysaa inaad ku riyo? that's the end. I hope lecture-kayga inaad ka hesheen kun raaxaysateen. qaybaha kale barnaamijkan hadduu Ilaahay yiraahdo sanadka cusub aad u update gareyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaad ka soo qayb geli doontaan waa idin rajeynayaa. see you. love you so much. thank you.